السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي أنا كسر هذا ما بودكاست أنا كهذا قيمها وحنون كقعة نرشة قيمة اللي يبقى عذو نفسيا مك أو حمسته أتفهم لا هاي إن نرشة كقانية واحد ترى هل رنا مع هالحقيقة وضدك بدن كذا أي سن أفهم سنين أو أي قطة هذا إنه فهمان حقيقة بتاعه. Do you remember those you killed? Any of them? That's enough. All of this makes me sick. There are some people at large in the world right now who need to be chained to hell. dhaawaca soo gaaraya ma aha waxa ku burburinaya ee waxa ku burburinaya waa marka dhaawacaasi noqdo qofka aad tahay adiga. dad badan waxay u maleynayaan in kuriba uu yahay jilaa ka sheekeynaya argoosi, laakiin haddii si qoto dheer aanu eegno kuriba ma raadinaya argoosi oo kaliya, wuxuu raadinayaa qayb kamid ah isaga naftiisa oo uu lumiyay maalintii la xasuuqay qabiilkiisa Kurta. maalintaas ma dhiman oo kaliya dadku, ma dhiman ehelkiisa oo kaliya ee waxaa sidoo kale dhintay wiilkii yaraa ee lahaa riyooyinka, wiilkii rumaysnaa in dunidu ay tahay meel wanaagsan. maalintaas waxaa dhashay kuriba cusub, kuriba aan u nooleyn farxaan, u nooleyn jacayl, una nooleyn wax mustaqbal ah, laakiin u noolaa hal shay oo ah argoosi. markii ugu horeysay ee daawato Hunter x Hunter waxaad leedahay waa geesi, laakiin marka aad sii korto ama wasa u dhacdo filimka gudihiisa waxaad ogaataa in geesinimadu aysan ahayn mar walba inaad la dagaalanto ama aad adigu dagaal zaa'id aad bixiso. mararka qaar geesinimada ugu weyn ayaa waxay tahay inaad sii dayso wax ku dhaawacay adigu, isla markaana aad qalbigaaga ka saarto waxyaabo adiga saameyn ku yeesha kuwaas oo aadan waxba ka bedeli karin. waana sababta Imperial Tanku uu u yahay mid kamid ah awoodaha ugu qotada dheer ee enemy-ga, sababtoo ah Imperial Tanku ma qaato tamar, mana qaato dhiig, sidoo kale ma qaato xoog ee wuxuu qaataa cimriga. ka fikir arrintaas, qof ayaa xoog badanaya laakiin qiimaha uu bixinayo waa noloshiisa. hadda isweydii ma kuriba oo kaliya ayaa sidaas sameeya mise annaguna sidoo kale waan sameynaa? imise qof ayaa maanta ku bixinaya ciil, caro, nacayb iyo qoomamo? sidoo kale qof baa qalbigiisa jibinaya sanado kadib weli wuxuu ka fikirayaa qof baa dulmiyay nafsadiisa, welina wuxuu ku nool yahay maalintii la dulmiyay. qof baa qiyaamay, wuxuu ka baqayaa in mar kale qof kale uu qiyaamo. dacdadii way dhamaatay laakiin maskaxdu weli halkii ayay joogtaa, maalintiina ma aysan dhaafin. taasi waa Imperial Time, mana aha enemy kaliya wax khuseeya. waxa ugu murugada badanna ma aha in waqtigu uu socdo, waxa ugu murugada badan wuxuu yahay inuusan waqtigu weligii dib soo laaban doonin. Kurapika ma dareemayo inuu cimrigiisa luminayo, sababtoo ah marka uu xanuunku noqdo ujeedada nolosha wax kasta waxay noqonayaan waxaan wax ka soo qaad lahayd, waxaana bilaabanaysa inay qiimo beeraan farxadda, nabadda, saaxiibtinimada, jacaylka iyo wax walba adeegta. waxay noqonayaan wax adiga aad agtaada weeyaan. waana halka ay dad badani ku dhacaan, waxayna u maleynayaan inay raadinayaan cadaaladda, laakiin dhab ahaantii waxay noqdaan maxaabiis. waxaa jira faqri aad u weyn oo u dhexeeya inaad xasuusato dhaawac iyo inuu dhaawacaasi u ogolaado inuu noqdo aqoonsigaaga. Kurapika wuxuu iloobay sida loo noolaado, sababtoo ah wuxuu bartay oo kaliya sida loo dagaalamo, laakiin noloshu mar walba kuma weydiinaysa sida loo dagaalamo. mararka qaar waxay ku weydiinaysaa ma awoodaa inaad dhaafto wax aanad adigu bedeli karin. taasina waa su-aasha dhabta ah ee Hunter x Hunter. ma aha yaa xoog badan, laakiin yaa awood u leh inuu qalbigiisa ka xakameeyo xanuun soo gaaray mar hore. ugu dambeyntii waxaad ogolaanaysaa in Patton Tronku uusan ahayn cadowga ugu weyn oo kaliya, cadowga ugu weynsa laakiin uu yahay muxuu ahaa go'aankii uu qaatay inuu noloshiisa oo dhan u xiro maalin kaliya, maalintaas oo ahayd maalin soo dhaafay. sababtoo ah maalintaad ogolaanayso in wixii hore ay xukumaan waxay beri noqonaysaa waxaad bilowdaa. inaad lumiso wax ka qaalisan argoosiga waxaad luminaysaa naftaada. waxa ugu wanaagsan ee maanta haysid ma aha awooda, mana aha lacagta, sidoo kale mana aha magaca. waxa ugu wanaagsan ee haysid waa waqtiga. marka waqtiga tagana laguma soo iibsan karo awood, sidoo kale laguma soo iibsan karo argoosi, laguma soo ceshan karo argoosi, laguma soo ceshan karo awood. waxaa laga yaabaa in Kurapika uu maalinta uu gaaro himiladiisa, laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay marka uu safarku dhamaado ma jiri doonaa nolol oo ku laabtay isagu.